السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا عشركة وحبرشادة ويندوز 10 فيديوغان maanta waxaan ku eegaynaa sida loo bedelo batteriga ama loo dhaqaaleeyo batteriga laptopkaaga markaadan koronto isticmaalayn. Marka waxaad samayn kartaa batterigu wuxuu kaaga muuqanayaa korontada marka computerka ama laptopka bixisid qaybtan hoose ee midigta sida ii muuqata markaan hadda mouse-ka dul saaro wuxuu ii sheegayaa batterigayga in 5 saac iyo 31 daqiiqo ay ka hadhay ama se boqolkiiba 95 aanan isticmaalin quwadda batteriga. Marka haddaa gujisid waxaad samayn kartaa haddaa rabtid inuu batteriga aad kugu dhaqaaleeyo sida hadda kayga ka muuqata wuxuu joogaa best performance oo micnaheeda tahay sida ugu fiican oo computerka u shaqayn karo ha igu shaqeeyo laakiin markaa wuxuu isticmaalayaa batteriga ugu badan oo aad buu batteriga u isticmaalaya ama sida ugu badan uu batteriga u isticmaalaya si uu shaqadiisa u wanaagsanaato. Waxaad samayn kartaa haddaad xagga u jiidid baarkaas waxaa geyn kartaa better battery micnaheeda waxa weeye wuu isku balance garaynayaa batteriga isticmaalkiisa iyo shaqada computerka. Marka si quwadiisan ayaan xumayn batteri badan uusan u isticmaalayn ayuu samaynayaa markaas. laakiin haddaad dib u celisid oo meesha ugu hooseysa geysid markaa wuxuu samaynayaa battery saver oo batteriga ayuu aad kugu dhaqaaleynayaa. laakiin micnaheeda waxa weeye waxyaalaha shaqadiisa computerka quwad xoog lama isticmaalayo muuqaalkiisana ma fiicnaanayo sida hadda aragtaan muuqaalkiisa aad u yaraaday. marka waxay kugu xiran tahay waxa adiga muhiimka ku ah hadduu batteriga inuusan aad u isticmaalin muhiimka ku tahay dhanka bidixda ayaa baarkan u jiidi kartaa. haddii ay muhiim ku tahay computerka inuu si fiican u shaqeeyo iyo muuqaalkiisana geeska midigta ayaa geyn kartaa. marka taas waa mid. waxaa kaloo samayn kartaa haddaan hadda kali garayo battery settings amase battery settings waxaan ka tegi karaa haddaan gujiyo start settings gujiyo haddana system battery marka halkan wuxuu iga tusayaa settings kala duwan ama meelaha kala duwan aan ka bedeli karo sida computerka uu batteriga u isticmaalayo. meeshaan ugu koreysa hadda oranayso see which apps are affecting your battery life micnaheeda waxa weeye applicationka isticmaalaya batterigaaga baad halkan ka arki kartaa haddaa gujisid waxay ku tusaysaa applicationka batteriga isticmaalaya ama quwadda batteriga isticmaalaya. meeshaan ugu koreysa waa inta macnaha uu meesha uu miisaamay oo 24 saac ugu dameeyay. applicationadani waxay isticmaaleen intaan oo batteria. marka sida hadda kuu muuqata Microsoft Edge wuxuu isticmaalay 50% oo batterigii la isticmaalay 24 saac ugu dameeyay. haddii aad taabatid marka meeshaan waxaa kuu soo baxaysa halkan waxay oranaysaa let Windows decide when the apps can run in the background micnaheeda ay tahay Windowska u daa iyaga ha go'aansadeen markii uu applicationka uu shaqaynayo oo background uu ku shaqaynayo adigan isticmaalayn. wuxuuna kuu sheegayaa hadda boqolkiiba 43 inuu batteriga markuu isticmaalay computerka in Microsoft Power Edge la isticmaalayay boqolkiiba 7 inuu ahaa wax backgroundka uu ka shidan aan cidna isticmaalin laakiin uu backgroundka uu ka shidnaa ayuu kuu sheegayaa halkaas. qaybtaas waa saas. marka halkana waxaa ka joojin kartaa ama ka bedeli kartaa muuqaalka screenka ama monitorka sida uu soo saarayo sawirka oo muuqaalka screenka ah. marka haddaan gujiyo display settings horey ayaan uga hadalnay display settings oo cajil videoga mid ku horeeyaan kaga hadalnay kaas dib ugu noqo oo fiiri. marka meeshaan joogtid haddaad taabatid Windows HD color settings meeshaan hoose hadda wuxuu kuu soo saarayaa when running Windows HD color content on battery power waxaad samayn kartaa optimize for battery life waad oran kartaa amase optimize for image quality macnaha muuqaalka computerka aad igu soo saar
markaas battery badan isagoo isticmaalaya ama waxaad oran kartaa muuqaalka batteriga sida ugu fiican oo computerka uu igu dhaqaaleynaya u samee marka halkaas optionkaas ka bedeli kartaa si uu batteriga kugu dhaqaaloobo oo uusan computerkaaga battery badan u isticmaalin waxaad kaloo samayn kartaa battery saverka ayaa markuu computerka uu si macnaha isaga uu battery saverka on kaaga dhigo 20% markay ka harsan tahay nolosha batteriga waxaad samayn kartaa marka inuu isu bedelo battery saver oo waxyaalaha oo aadka batteriga u isticmaalayo dhan intuu shutdown ka dhigo uu macnaha screenkana uu muuqaalkiisa aad u yareeyo saas oo kale ama muuqaalka oo aad u yareeyo meeshaan oranaysa battery saver status until next charge micnaheeda waxa weeye battery saverka ama dhaqaaleynta batteriga on ka dhig oo daar ilaa aan computerkayga ama device-kayga aan koronto geliyo marka haddaad on ka dhigtid micnaheeda waxa weeye battery saverka ayaa on noqonaya oo wixii backgroundka applications ka shidnaa uu isdeminayaa ilaa waqtiga dambe ilaa aad ka charge gelisid oo computerkaaga aad korontada ka gelisid oo marka aad charge gelisid meeshaan hoose oo oranaysa lower the screen brightness while in battery saver micnaheeda waxa weeye markaas muuqaalka screenka yarey markuu computerka uu battery saving mode uu yahay meeshaan hoose change the battery settings for playing videos haddaad gujisid waxaa kuu soo baxaysa meeshaan oo video playback ka bedeli kadib oo markaas waa meeshaan horey wax yar uga hadalnay oo markaas qaabka aad videoga uga soo saari karid computerka ayaad ka bedeli kadhaa halkan oo lower iyo higher ka dhigi kadhaa oo waxaad markaad samayn kadhaa hadda hadduu lower markaad videoga kale games ama video gujidid ama video aad daadid waxaad samayn kadhaa waxaad hoos ka dhigi kadhaa videoga muuqaalkiisa si markaa batteriga uu kugu dhaqaaloobo markaa haddaad calaamad saadid weeye checkboxkaas marka intaas haddaan uga gudubno bedelaada sida loo bedelo qaabka batterigaaga loo dhaqaaleeyo muhiimadiisa waxa weeye inaad waa qaybtan hoose oo markaas saddexdaas option kii adiga kugu habboon aad xulanaysid oo ah best performance better battery iyo battery saver oo mid walba aad macnaha qaabka adiga computerkaaga u isticmaashid ama batterigaaga siduu kugu dhaqaalooba aad u rabtid aad u set garayn kadib iyo qaybtan kore iyo aragtida aad arkaysid waxyaalaha isticmaalaya batteriga computerka ama aad ka damayn karid ama aad ka joojin karid ama aad ka bedeli karid marka videogaas intaasaan ku joojinaynaa insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.